بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa ku yimid booqasho rasmi ah wadanka Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya booqashadaas oo ahayd in uu la kulmo madaxweynaha dhigiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo kana wada hadlaan xiriirka labada wadan xiriirka mandaqada iyo soo xoojinta xiriirka walaalnimo taariikhiga ay ka dhaxeeyaan labada dawladood si wanaagsan ayaa loogu soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha maanta kadibna waxaa qasriga ku qaabilay xafiiskiisa madaxweyne Ismaaciil madaxweynaha iyo wafdigiisa wada hadalna way galeen dheer labada dhinacba ah waxayna ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirkaas taariikhiga sidaad ogtahay Soomaaliya waxay ka mahadcelisay mar walbana ka mahadcelisaa ciidamada hiil walaal ee u jooga inay sugaan nabadda iyo xasilinta wadanka Soomaaliyeed sidoo kale dowladda Djibouti waxay ka mahadcelisaa markasta taariikhda gobonnimadoonka ee wadanka Djibouti wada hadalkeena maanta soo gunaanaday marka labada madaxweyne iyo wafdiga waxay aad uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaalaha dhaqanka iyo taariikhiga siyaasadeed ee ka dhaxeeya sidii loo wajihi lahaa isbeddelka ka socda iyo sidii loo nabadeyn lahaa mandaqada dhan ee Geeska Afrika